weligaa canshuur ma bixisay maya shatiga kaliya ayaan goosanaa oo kaliya laakiin wax kale canshuur ma bixino weligaa canshuur ma bixin canshuur aniga weligay ma bixin hadda ka horna ma jirin wax cusub waayo anaga nagu cusub waayo weligaa xitaa ma maqlin canshuur oo salis taxi ah canshuurta waa qaaraan qaran oo bulshada ku qasban tahay inay bixiso si dal iyo dad u horumaraan Soomaaliya waxaa kaalmo siiya dawlado badan oo dunida ah waxaana kaalmadaas ay ka timid canshuur dad kale laga qaaday tusaale David waxa uu canshuurta siiyay dawladdiisa Mareykanka dhammaan canshuurta soo gashay sanad oo tan David ku jirta ayaa miisaaniyad u ah Mareykanka wixii ka soo haray qayb ka mid ah ayaa kaalmo loo siiyay Soomaaliya David waxa uu wax ka bixiyay mushaarka ciidankeena Soomaaliyeed haddaba yaa dalka noo dhisaya ma canshuurta John oo British ah laga qaaday ka soo hartay baan sugnaa arrinkaas xataa inuu ceeb noqdo macnaha qofka fikir yiraahdo dad kale lacag ay bixiyeen oo dawladoodu ka qaadatay oo macnaha inaga ay soo siiyeen macnaha qofku ku qanco yiraahdo inta macnaha dhigi lahaa war wax anagu aan leenahay la baxayna qofka muslimka runtii waxyaabaha oo macnaha naftiisa u jeeda waxa kamid ah waxyaabaha macnaha dulinimada oo madalatu nafsiga kala camal inuu iska ilaaliyo Abdi Sheekh waa Soomaali Mareykan canshuurta dalkiisa labaad waa uu bixiyaa العليس إلى 7,000 دولار معناها عشورتها 7,000 waxa ay ku kooban tahay oo kali ah cashuurta laga jiray sanadkii la soo dhaafay 2017 cashuurta marka waa cashuurta kali ah oo markii la isku daray waxa macnaha xabiyan shaqo la isku daray cashuurta yaa 7,000 ah cashuurta kale oo nolol maalmeedka ah ka soo qaado kale waxa laga yaabaa maalintii inaad door meel wax ka gaarto soo qaado meel ka gaarto $5 meel ka gaarto $10 meel ka gaarto $1 adiga lacag macnaha aan la xisaabin karin canshuuraha waa dhowr nooc tan laga qaado dadka caadiga ah dakhliga soo gala wadamada caalamka waxa kaalinta koobaad iyo labaad kaga jira Belgium 42.8% ayaa laga jaraa mushaarka qofka kaliya ah Germany 39.9% canshuurta dakhliga Soomaaliya cid bixisa oo wixii soo galay laga xisaabtamo ma jirto marka laga reebo shaqaalaha dawladda canshuurta shirkadaha ganacsi laga qaado waxa kaalmaha hore kaga jira wadamada caalamka Imaaraadka waa 55% waxa ku xiga USA 38% ganacsatada Soomaaliyeed shirkad bixisa canshuurtan ma jirto oo sanadka marka uu dhamaado la xisaabtamo haddaba maxay tahay canshuurta dawladda qaado oo ganacsatada Soomaaliyeed ay diidan yihiin canshuurta walxaha dekedaha dalka ka soo dega qaanuunka Soomaaliya waa 5% balse dawladda oo aan awood badan lahayn ayaa qiimahaasi dhintay sidaas oo ay tahay ganacsatada weli ma ogola iyagoo bixiya canshuuraha dalalka kale ay ka ganacsadaan sida Kenya tusaale halka tan ee shidaalka waxa laga qaadaa dekeda Mombasa $450 dekeda Muqdisho waa $45 waxa wadanada kale siisa maxaad noogu diiday Mombasa waxa siisa maxaad noogu diiday bal ee sheega waxa siisa xaqiiqadu waxay tahay waxa weey ya tankii petrolka ahaa Mombasa $450 baa laga qaadaa anaga waxayna siiyaan tankii 45 هذا بالقياس ده calculation كأدو قل وده ونكلا حكومة أنا جي business نكلا حكومة.